Assalaamu calaykum walaalayaal, maanta waxaanu bilaabaynaa barnaamij taxane ah kaas oo lagu akhrinayo buugaag. Si gaarana waxaa bilaabaynaa buug 9 day routine oo ah buug aad u waxtar badan. Marka fadlan haddaada wax akhriyin la soco buugaagata xiriirka oo halkan ku soo gudbin doono. Waxaa qoray Muhyidiin Cali. Fadlan ka faa'iidayso oo wax badan kororso. Buug waxa uu ku bilaabanayaa tusmada buuga oo sidan u qoran. Tusmada buuga. Hordhac. Awoodda joogtada si wanaagsan loo qorsheeyey. Cutubka 1. Fahamka muhiimadda joogtada ah. hal sayniska ka dambeeya joogtada. 2 faa'iidooyinka haysashada jadwal habaysan. 3 xidhiidhka ka dhexeeya joogtaynta iyo guusha. Cutubka 2. Dejinta jadwalkaaga joogtada ah ee 9 maalmood. 2 dejinta yoolal iyo ujeedooyin cad. 2 aqoonsiga mudnaantaada. 3 abuuritaanka jadwal dheelitiran. 4 ku habboonayntaada joogtada ah nooca qofnimadaada. Cutubka 3. Cibaadooyinka subaxda ee maalinta wax soo saarka. 3 awooda joogtada subaxda. 2 qodobada subaxnimada waxtarka leh. 3 farsamooyinka kobcinta tamarta iyo diirada. 4 abuuritaanka jadwalka subaxnimo ee maskaxda leh. Cutubka 4. Dhisida caadooyinka iyo jebinta kuwa xun. 4 cilmi nafsiga samaynta dhaqanka. 4 xeeladaha aasaaska caadooyinka cusub. 4 in laga qudbo dib u dhigista iyo isqaburinta. 4 wax ka qabashada iska caabinta iyo jirrabaadda. Cutubka 5. Kobcinta wax soo saarka iyo maaraynta wakhtiga. 5 farsamooyinka kala horumarinta hawlaha. 5 wakhti xanibid iyo jadwal wax ku ool ah. 3 xeeladaha looga fogaado dib u dhigista. 4 qalabka iyo abidiska ee kor loogu qaadayo wax soo saarka. Cutubka 6. Istaryeelka iyo ladnaanta ee jadwalkaaga. 6 muhiimadda istaryeelka. 2 isku dhafka jimicsiga iyo dhaqdhaqaaqa. 3 farsamooyinka dhimista maskaxda iyo cadaadiska. 4 helitaanka isu dheelitirka iyo ka hortagga gubashada. Cutubka 7. Kobcinta xiriirka iyo xiriirka bulshada. 7 kobcinta xiriirada macnaha leh. 7 isku dheelitirnaanta xiriirka shakhsiyeed iyo xirfadeed. 7 isgaarsiin wax ku ool ah iyo xalinta khilaafaadka. 4 xeeladaha isku xidhka iyo dhismaha xiriirka. Cutubka 8. La socodka horumarka iyo hagaajinta jadwalkaaga joogtada ah. 8 awoodda cabbirka iyo dabagalka. 8 qalabka lagula soconayo horumarkaaga. 8 samaynta hagaajinta iyo hagaajinta koorsada. 8 dabaaldegyada horumarka iyo guulaha. Gabagabo. Qabashada nolosha joogtada ah ee guusha. Adduunkan maanta xawliga ku socda, halkaas oo carqaladaha iyo dalabaadka ay si joogto ah noo jiidayaan jihooyin kala duwan. In la helo nidaam si fiican loo qorsheeyey ayaa muhiim u ah gaarista guusha. Isbeddelka 9 maalmood waa hage dhammaystiran oo kaa caawin doona inaad sare u qaado jadwalkaaga oo furto awooddaada buuxda. Adigoo raacaya mabaadida lagu sheegay buugan, waxaad awoodi doontaa inaad naqshadayso 9 maalmood joogto ah oo shakhsi ah, kaas oo la jaan qaadaya yoolalkaaga, kor u qaadaya wax soo saarkaaga, oo kobcinaya nolol dheelitiran oo dhammaystiran. Cutubka 1. Fahamka muhiimadda joogtada ah. 1 sayniska ka dambeeya joogtada. Joogtaynta joogtada ahi waxay si qoto dheer ugu dhex milmay maskaxda aadanaha. Maskaxdeenna waxaa loo xirxiray si ay u raadiyaan qaabab iyo nidaam, maadaama ay naga caawinayso ilaalinta tamarta maskaxda oo aan gaarno go'aamo hufan. Cilmi baaristu waxay muujisay in joogtada ah ay yarayn karto walbahaarka iyo walaaca, hagaajinta tayada hurdada iyo kor u qaadida fayo-qabka guud. Fahamka sayniska ee ka dambeeya nidaamka caadiga ah wuxuu ku siin doonaa aasaas adag oo lagu dhisayo howlqabad wax ku ool ah oo 9 maalmood ah. Faa'iidooyinka haysashada jadwal habaysan. Jadwal si fiican loo habeeyey wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badan. Waxay ku siinaysaa dareen degenaansho iyo saadaalin.
taasoo kuu oggolaanaysa inaad si fiican u maamusho wakhtigaaga iyo agabkaaga. Jadwalku wuxuu kaloo kaa caawinayaa inaad horumariso edaabta iyo joogtaynta sifooyinka lagama maarmaanka u ah gaaritaanka yoolalka mustaqbalka fog. Intaa waxaa dheer, habka joogtada ah wuxuu wanaajin karaa hal abuurkaaga maadaama ay u fasaxayso meel maskaxeed fikirka cusub. Xidhiidhka u dhexeeya joogtaynta iyo guusha. Shakhsiyaadka ku guulaysta qaybaha kala duwan waxay u nisbeeyaan guulahooda awooda joogtada ah. Laga soo bilaabo ciyaartoy heer caalami ah ilaa fanaaniinta caanka ah, joogtaynta ayaa ah laf-dhabarta nolol maalmeedkooda. Markaan baarno hab socodka guulwadeennadan sare, waxaan soo saari karnaa fikrado qiimo leh oo aan ku dabaqi karno nolosheenna. Cutubkani waxa uu daahfuri doonaa xidhiidhka ka dhexeeya joogtada ah iyo guusha, isaga oo kugu dhiirigelinaya in aad qabsato kartida waxbeddelka ee 9 maalmood ee joogtada ah ee sida wanaagsan loo nashqadeeyey. 4 doorka joogtada ah ee kobaca qofka. Caadi ahaan waxay u shaqaysaa sidii kicinta kobaca shakhsi ahaaneed iyo horumarka. Marka aan dhisno caadooyin iyo caadooyin joogto ah, waxaan abuurnaa aasaas xooggan oo horumar ah. Marka lagu daro waxqabadyada ulakac ah ee joogtada ah sida akhriska, barashada iyo ku celcelinta xirfado cusub, waxaan si joogto ah u ballaarin karnaa aqoonteena iyo awooddeena. Joogtaynta joogtada ahi waxay bixisaa qaab dhismeedka iyo anshaxa loo baahan yahay si korniinka shakhsi ahaaneed looga dhigo mudnaanta nolosheenna. Ka faa'iidaysiga awoodda caadada. Caadooyinka waa aasaaska joogtada ah. Fahamka cilmi nafsiga ka dambeeya samaynta caadooyinka ayaa muhiim u ah abuurista isbeddel waara. Charles Duhigg, buuggiisa Awoodda Caadada, wuxuu leeyahay caadooyinka saynisyahanadu waxay yidhaahdaan waxay soo baxaan sababtoo ah maskaxdu waxay si joogto ah u raadinaysaa siyaabo ay ku badbaadiso dadaalka. Fahamka habdhaqanka caadooyinka, tilmaan joogtayn abaal marin, waxaan si ula kac ah u qaabayn karnaa howlaheenna joogtada ah si aan u kordhino caadooyinka togan oo aan u yarayno kuwa xun. Cutubkani waxa uu sahamin doonaa xeelado wax ku ool ah oo lagu dhisayo caadooyin cusub iyo jebinta kuwa xunxun. 6 abuurista qaabdhismeedka iyo deganaanshaha. Noloshu waxay inta badan dareemi kartaa qas iyo qas. Joogtaynta joogtada ah waxay bixisaa dareen qaabdhismeedka iyo xasiloonida na siinaya dareenka xakamaynta nolosheenna. Annagoo u habaynayna maalmaheenna iyo toddobaadyadeenna qaab habaysan, waxaan si wanaagsan u maarayn karnaa wakhtigeenna iyo mas'uuliyadeenna. Waxaan sahamin doonaa farsamooyin lagu dejiyo yoolal cad, lagu aqoonsanayo mudnaanta iyo abuurista nidaam dheelitiran oo la jaan qaadaya qiyamkayaga iyo rabitaankayada. 7 taabista waxqabadka ugu sarreeya. Jadwalka joogtada ahi waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa gaaritaanka waxqabadka ugu sarreeya. Markaan wanaajino caadooyinkeenna maalinlaha ah iyo caadooyinkeenna, waxaan kor u qaadi karnaa diiradayada wax soo saarka iyo waxqabadka guud. Cutubkani waxa uu daahfuri doonaa farsamooyin ay ka mid yihiin xanibaadda wakhtiga, mudnaanta shaqada iyo jadwal wax ku ool ah si ay kaaga caawiso in aad furto kartidaada buuxda. Sida Tony Robbins mar yidhi, haddii aad samayso waxa aad weligaa samayn jirtay, waxaad heli doontaa waxaad weligaa heli jirtay. Waa markii aad sare u qaadi lahayd caadadaada oo aad gaadho natiijooyin aan caadi ahayn. 8 maskaxda iyo joogitaanka joogtada ah. Inta lagu jiro mashquulka iyo mashquulka nolol maalmeedka, way fududahay in la maro dhaqdhaqaaqyada iyada oo aan si dhab ah loo joogin. Maskaxnimadu waa dhaqanka in si buuxda loogu howlgalo wakhtigan xaadirka ah, waxaana lagu dari karaa howlaheena joogtada ah si aan u kobcino dareenka deganaansho iyo cad
cutubkani waxa uu sahamin doonaa farsamooyinka maskaxda iyo xeeladaha kaa caawin doona inaad geliso joogitaankaaga joogtada ah, taas oo kuu oggolaanaysa inaad si buuxda khibrad iyo qadarin u hesho daqiiqad kasta. Ka gudbidda iska caabinta iyo dhisida adkaysiga. Iska caabinta iyo isqaribnimada ayaa inta badan caqabad ku ah horumarka aan ku gaarno yoolkeenna. Fahamka caqabadaha nafsiga ah ee naga hor istaagaya inaan ku dhiganno hawlaheena joogtada ah ayaa lagama maarmaan u ah ka gudubka iyaga. Cutubkani waxa uu bixin doonaa xeelado lagula tacaalayo iska caabinta, laga gudbayo dib u dhigista iyo dhisida adkaysiga. Sida Stephen Pressfield ku qoray Dagaalka Farshaxanka, mar kasta oo aad la kulanto iska caabin badan,